kulanti wacan oo wanaagsan daawadeen meel kasta dunida ka joogtaan halka naga daawanaysan waa Astaan Sports waxaanu eegi doonaa ciyaarta xiisaha leh ee u dhaxaysa kooxda Baalu iyo kooxda Man United garoonka lagu ciyaarayo waa garoonka Old Trafford waxaanu falaqeyn doonaa ama faguri doonaa ciyaarta u dhaxaysa kooxda Man United iyo kooxda Baalu waxa barnaamijka igu martiya khuburo dhanka ciyaaraha aad ugu khatar oo magaalada Hargeysa aad loogu yaqaano dhanka midig oo kooxda Man United ay xigaan halka dhanka bidix ay xigaan kooxda Baalu taageerayaasheeda waaweyn ee magaalada Hargeysa loogu yaqaano dhanka midig waxa ay xigaa kooxda Man United Saki Yusuf Yaasiin Jirdakeyse iyo David Ibrahim halka kooxda Baaluna ay kamid yihiin Mukhtaar Maxamed Cabdi Yusuf Axmed Yusuf iyo Maxamed Cabdisaaq Koosar haddaba waxaan ku bilaabi doonaa taageerayaasha kooxda Man United kooxda Man United imika waan ka warhaynaa dhibaatooyinka haysta saddex ciyaarood isku xiga ayaa 9 gool laga dhaliyay su'aasha ugu horeysa waxaan ku furi doonaa Saki Yusuf oo ah taageero weyn oo kooxda Man United Saki maxaa sababay guuldarooyinka kooxda Man United imika saddex ciyaarood isku xigta wali kooxda Man United xabad gool ma dhalan saddexda ciyaaroodna waa laga gacan sareeyay guuldarooyin xanuun kulana way soo fuleen kooxda Man United maxaa sabab u ah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore aad baa idin salaamaya Cabdirasaaq marka labaad waxaan salaamayaa Astaan TV oo ah meesha barnaamijkan laga diyaariyay oo run ahaantii ah barnaamijkii ugu horeeyay caasimadda laga diyaariyay iyadana aad baan u salaamayaa su'aasha labaad Cabdirasaaq hadaan soo noqdo Cabdirasaaq waa run saddex ciyaarood baa kooxda laga badiyay taana anigu waxaan odhan karaa waxa uu sababa waa isbedelka macalinka cusub Manchester awal waqti culus bay ku soo jirtay waqtigii Jose Mourinho weyn ogeyn iyadoo marxaladdu aad u xun tahay ayaa macalinkii Jose Mourinho la eriyay markii la eriyay waxa la magacaabay Solskjaer markii la magacaabay qaab ciyaareedkiisu aad buu u soo bandhigay intaan heshiiska cusub loo saxiixin dadka adduunku aad buu la yaabeen waa cajiib shaxdiisa quruxda badan leh PSG bay ogeyn sidoo jiray Chelsea ay ogeyn Liverpool bay ogeyn imika markii heshiiska loo saxiixay waxaad moodaaba inay kooxda bis bedeshay Cabdisaaqo oo Mourinho faraha badan ee isagii la siiyay uu habeenba uu doonayo shax allaale shax doonayo oo isagiiba fursad la siiyay taasaa keentay inay isbedelkan kooxda ay gool bedel weydaba oo aad kooxda aad mooday marka intii aan heshiiska loo qorin wala xakameynaya baleed ha culays baa korsanaa isaguna culays buu saaray oo waxaad ka garataa PSG buu la ciyaaray Chelsea buu la ciyaaray Liverpool buu la ciyaaray saddexda ciyaarood buu guulo waaweyn ku keenay PSG aan la islahayn uu dhaafay comeback cajiib ah uu sameeyay waxayna noqotay kooxdii ugu horeysay taariikhda Champions inta gurgeeda home-ka ah inta laba laga dhaliyo away ku soo baxday noqotay ciyaar aad qiimo badan run ahaantii way ahayd waa intaan la magacaabin ee aan heshiiska cusub loo saxiixin anu farqigaasaan soo oran karaa aad baad maasantay Saki Yusuf Yaasiin Jirde adiga maxaa la oran karaa khaladka ugu weyn ama guuldarooyinka ugu weyn ee Man United soo gaaraya maxaa sababa qaar saxaafada waxay qoriyaan gooladaha sababa David Khiyaw si saxaafada dhimid maanta ay qorisay marka maxaa u sababa marka hore Cabsaaq adiga aad baan ku salaamay iyo TV-ga Astaan haddaan su'aasha sida ugu habboon lagu jawaabo waxa weeyaan horta waa xaalad kala gurba markii hore lagu jiray oo waxa weeyaan saad ogeedba macallin maxay tahay waligan Solskjaer khibrad maxay tahay oo Premier League hore oo soo koocha oo cid leeliyay may jirin waxaan moodaa sidoo saaxiibkay Sikriye sheegay in maxay tahay markii gacanta loo sii daayay lagu naadigii adaa macallin permanent manager inuu waxa weeyaan shaxdii aan cid kale la maamulo bariga hore maalmihii maxay tahay shaqada loo dhiibay caretaker waxa jirtay in maxay tahay uu ku helinayay macallinkii Sir Alex Ferguson oo shaxda maxay tahay laga talinay imka waxaan moodaa in markii gacanta loo sii daayay inay maxay tahay guuldarooyin badan ay ku xisaabtay waxa laga yaabaa wuxuu ciyaaray 9 kulan ciyaaray isagoo permanent maxay tahay manager laba qurato badiyay intii kale maxay tahay waa laga badiyay West Ham iyo Watford qurato badiyay intii kale maxay tahay guuldarooyin xanuun leh waliba ka daranta waxa jirta waxa la yiri waxa lagu leeshay ciyaaraanka soo Manchester ka tirsan in 25% mushaharaadka ay qaataan la dhibi doono haday ka soo qayb gali waayaan maxay tahay championka taasna islaano dayb adiga su'aashaad waxa aan ku weydiinaya waxay tahay macalinka qaab ciyaareedkiisa khaldan mise kooxda ciyaaryahanada laftigooda ayaa moral jab haystaa bal noo kala cadday labadaas kooxda Man United problemka haysta iyo dhibaatada ay ku jirto bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad baan ku salaamaysaa Cabsaaq Daahir marka xigta waxaan salaamayaa TV-ga Astaan TV oo runtii TV horumar fiican ka sameynay magaalada ah marka xigta waxaan salaamayaa asxaabtayda iska soo horjeedno iyo kuwa aan bahwadaagtanahayba sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta shaashada naga daawanaysa aqoontaan isku leenahay aad baan u salaamayaa salaanka bacdi markaan u yimaado su'aashaada waxa weeye dhibaatadan Manchester soo gaadhay yaa sabab ciyaaryahanada mise macalinka inay kulamo badan imika qasaartay oo aanay qasaarin intii uu macalinka ahaa runtii horto
muxuu ahaayey marka la yidhaa macalinkani ku meel gaadh buu intii hore ahaa saas uu badinayay tanna san buu badin laayay صح fikirkaa horta anu fikir ka duwan baan qabaa fikirkaa ka duwanaan qabaa waxa weeye markii hore wuxuu ku ciyaari jiray 11 qof ku ciyaari jiray صح oo fudfudud saddex yararo weeraro fudud laba nin oo dhexoo hereere iyo maatij ku bedelayaal fiican bay ahaayeen صح bogbana siduu doonu ugu baashaalay xagga hore صح laakiin waxa dhacday in kooxdii dhaawac ku yimi maatij iyo hereera صح oo aynu odhan karno dhammaan kulamadan ay guuldarraysanaysay صح inta ugu badan bay ka maqnaayeen وداوع سودك باريس بقى داوع. وحين بقى كجبدني waa run taasina way jirtay صح taa horta dee ma odhan karno awood baan ku guulaysanay صح kulan wuxuu ahaa nasiib صح ku soo baxnay waxaanu dhalinayna waxaan saddexii fursadood aan goolka la helnay صح oo dayta kale xagga dambe difaacanayna وانقرت qaladkii Parisna waa looga badiyay صح laakiin koox kale noomay qaldanteen oo Barcelona oo kale noomay qaldamin صح laakiin dee caruurnimada Paris bay noogu qaldantay inay championka khibrad u ايوه lahayd يا رجنودا صح marka problemku horta waa xagga dhaawacyada صح midda kale waxa la galay week salaasa la ciyaarayo haddana sabti la ciyaarayo وانقرت waxa loo baahan yahay haysato koox tayo leh oo la isku bedesho صح oo isku dhigato وكل عياريهنada ciyaartu- ciyaar ku fadhiyaba isla ka isleegaadaan sida City oo kale صح imanka bal City u fiirso xalay Fernandinho mish ku dhimanayay صح ayaa laga saaray وانقرت waxba uma noqon waxay soo geliyeen nin weerara dhex kubadiina waa naga qabsadeen markii naga marka qabsadeen ujeedadu waxa leedahay ujeedku weyni waxa weeye ciyaaryahan la'aan baa macalinka ciyaartii xuma haysa صح difaaxmada horu noogu sheegay baalkii Mourinho صح wuxuu doonayay waxa ay koox difaac ka soo dhiso sanadka difaac xumadi wayna haysaa Aad baad u mahadsan. gool badanna waa la naga dhigay هي دايب taas waa qodob aanu gudbo xagaayo taageerayaasha kooxda Baalu oo ah iyagoo taageerayaasha u martida ah kooxda Man United barbarkayga bidix waxa fadhiya Mukhtaar Maxamed Cabdi Mukhtaar kooxda kortigsan waa koox aad u cadhaysan saddex ciyaaroodna gool ma way dhalinba xitaa ciyaartii ugu dambeysay kooxda Man City baa ka guuleysatay sad ka gortigi kartaan kooxda Man United waayeen horta waxaan aad halkan uga salaamayaa Cabdisaaq Daahir Maxamed Xasan waxaa kaloo salaamayaa bahda Stan Sports oo barnaamij fiican wallahi hirgelisay foolka fool aad baan u soo dhaweynayaa dhalinyarta caasimaduna aad bay u soo dhaweynayaan kulli barnaamijkan waxa rajinaya kulli maadaama uu ugu horeeyay noqdo yahay inay kuwa kale oo fara badan la socon doonaan insha Allah motivation fara badan u dhalinyartu yahay kaasi waa ka inta kadib markaan su'aasha u imaado horta Man United iyo marka Chelsea isku eegto waxa weeye xilli ciyaareedkan horta masiibooyin fara badan baa Man United xageeda haysta صح Chelsea lafteeda waxaad moodaa أول هوري وإحنا اللي وحنا منشري حق الدفاع إننا نكون أكسني هي لكن ما كواحد ركتها حق الدفاع قالوا بدن مرة قارن القدر اليوم صح صوب السيتي وقعصوا ها السيتي ده وري تشيلسي أول لح لقى بدن بريها يبريها صح أو إما كمان يونايتد وكلا ده كوح وين وكلا أنا لح ده نقى بدن سمو يانو وقت خرا هيد مو يعني صح إن أنا وقت يلا نقى لحنا لقى بدن وانقر أيوة واحد ركز علينا سيتي لح نودي بتي صوبت نروح وين وقاعد جاي ومسني معلن عصبة كوحدة قبصتي موريو ساري ومعلن طلياني أو طلياني كيميد فلسفadiisu waxay ahayd markaasi Sarri Ball baa la dhahaa kubadiisa oo kubad tiki taka oo taabasho waan ku gaardayro la Napoli markuu joogay ay Champions League galeen taabariga wanaagsan man moodin adduunka joogay ninkan oo kale iga fiican صح kulli markaas Sarri laftiisu kulanka marka u soo noqoto kulanka marka u soo noqdo ciyaarta waxa laga yaabaa horta anagu laftaydu Burnley baa imkan soo qabatay صح oo laba صح homekayga waliba nagu soo qabatay صح laakiin imika markaan eego kulanka Manchester ciyaartoy Manchester iyo kulanka Manchester iyo Chelsea ciyaartoy fara badan oo Chelsea ayaa joogay imika oo kulamada Manchester aad u dhaqaqa sida ciyaartoyga Eden Hazard oo kale oo goolasho ugu badan ka dhaliyay Manchester marka aad eegto kulamada aan la ciyaarnay waan gartay kulanka maxaad soo oran kartaa kulanka waxa rajeenayaa waxaan idiga ka dhaasan doona mise wala inaga dhaasan doona waxay ila tahay kulankaasi kulli horta waa kulankan ama championka ku galeynay ama kaga xidhan maadaama kaalinta afraad ku jiro marka saameyn xoogan maadaama nagu leeyahay waxa rajinaya kulankaas inuu kulan Manchester jeeri doono oo noqon doono aad baad macsantiin aanu dhiibo Yusuf Axmed Ismaa khabiir weyn oo kooxda Chelsea oo runtii taageero weyn oo kooxda Chelsea magaalada Hargeysa looga yaqaan Yusuf kulankaas oo kulan xiiso badan waliba macallinkii kooxda Manchester baray Chelsea sida loo qabto Jose Mourinho oo ku tagay imika macallin cusub baa haysta see laga hortagi karaa kooxda bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Cabsaaq aad baan ku salaamay adiga shirkadda caalamiga Stan Cable TV oo ah run ahaantii shirkad aad Somaliland in badan wax ku soo kordhisay kuna soo kordhin doonta haddaan su'aasha u soo noqdo Jose Mourinho waxa weeye macallin aad u fiican oo ay kooxda Manchester United ay iska bedeshay صح tababaro waxay magacaabeen Ole Gunnar Solskjaer صح isaga laftiisu waqtigii uu ka bedelay shaqada waxa la lahaa kooxdii waxa dardar galiyay ciyaartoydu uu soo qaaday kooxdii si fiican bay isku la qabsatay laakiin Paris uu ka bidiyo Chelsea uu FA Cup ka bidiyo that's good laakiin sidii xaqii dambe xisaabtu ka adkaatay odaygii yaraaye wajiciyaal ahaa Solskjaer
haddaan ciyaartaa eego manchester united waqti xaadirkan xaaladda ku sugantay aad baynu arkaynaa maadaama chelsea aanay kaba liidan oo ciyaartii ka horeysay berlin la qabatay iminkana tii ka horeysay liverpool la qabatay haddana waxaan rajaynayaa inaan ka badino kulankaas waxa weeye kulanka kaalinta afraad noo natiijada noo xaqiijin doono horyaalka yurubna aad ku geli karayso aan horyaalka yurubna ku geli karayno laba jaanis baan haysanaa UEFA baan afar taaganay laakiin muhiimadda koobaad waa Premier League-gaasoo awoodii aan saarayno maadaama nimanka kaalintii afraad ku jirno aan kooxdii Manchester United aan ka horeyno 3 dhibcood Arsenal 2 dhibcood aan ka horeyno haddana waxaan rajaynayaa xaas waxay inaad kooxdaad ka awood sareysaan kooxda inaan ka awood sareyno maxamed cabdi koosaar macalinka kooxda Chelsea wata waa tababari saari intuu garoonkiisa ka baxay kooxo kale kooxo waaweyn u waajahay guuldarooyin buu ka soo qaatay sida kooxda Liverpool kooxda Man City 6 kaga soo badisay Arsenal 2 kaga soo badisay garoonkuna waa garoonka Old Trafford hoyga waxa la dhahdaa riyada si naxariis looguma yimaado ilaa koox ulushi ay ka soo baxday mooyaan sidka gortay karaysa macalinkana waa ku cusub Premier League oo markii ugu horeysay uu tago garoonka Old Trafford garoon ma si naxariis laga soo baxayo ugu horeyn waxaan salaamayaa bahda halkan ila fadhida asxaabteedan garabkayga fadhida iyo asxaabtayga soo jeedaba sidoo kale cabsi qadna waxaan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabtayda naga daawan doonta shaashada sax haddana soo noqdo su'aashaas jawaabteeda oo kooban waxaan ku waajahaynaa kooxda Man United iyadoo gurigeeda joogta sidii aan ugu waajihi jirnay awal horeba aynu ku waajahaynaa haddaan ka hadlo xaaladda Sarri problemka Sarri haysta waxa weeye kooxdan Chelsea waxay awal hore koox ku ciyaari jirtay difaac hab difaac laga soo bilaabo waqtigii ay Chelsea ka soo baxday Serie B sax isaguna ninkana waxa uu ciyaaraa kubad falsafad cusub oo ah taabasho ilaa inta garoonka la gaarayo la gaarayo goolka kooxda kale sax marka problem waxa weeye isqaban waa macalinkii Sarri Paul iyo habdhaqankii Chelsea sax inkastoo aad muddo inay xogaa la soo qabsanayso haddana problemku waa halkaasaan oran karaa waana sanadkiisa ugu horreeyey insha Allah waxaan doonaynaa inaan bal eegno isagana sanadada dambe inay kooxda la qabsatay in kale sax marka garoonka markuu technicaas maxaa laga filan karaa ilaan kooxo waaweyn Liverpool baa ka soo badisay markuu dibadda u baxay Everton baa ka mid ahayd Man City Arsenal Wolves Tottenham ugu horeysay kooxdii guuldarro kula kulmo marka maxaa laga filan karaa horta kooxaha shayga soo dhan Man United way ka difaac fiican wayna ka weerar fiican sax marka taas waxay sababaysaa inaan Man United garoonkeeda aanu siro fudud insha Allah ku dhaafi doono waxaan u sababa ciyaartooyda aan maanta haysano oo aad uga fiican ciyaartooyda marka xaasib waxay weeyaan inaad kooxda ka wanaagsantiin garoonkan aad kooxda Man United ka dhaafto ku mari doono insha Allah ay sakiis adiga ciyaartaas waa ciyaar aad xiiso badan guuldarooyin xanuun weyn ugu dhaceen ciyaarta ma isku qabajin doontaan mise wali guuldarooyinkiina waa inay sii socon doonaan xabsaaq wala horta waa su'aal aad u fiican horta labada kooxood wada ciyaaraya awal waxaan uga barnay iyagoo horyaal ku tartamaya inaynu daawano maanta laakiin marxaladdu way ka duwantay kaalintii afraad baa la soo haystaa sax oo kaalintii afraad baa waa jawi ka duwan jawiyadii hore sax kooxaha waaweyn kubadda cagta wayn daawanaa laba mid ma wada xamili karayaan Manchester United 3 ciyaarood isku xiga laga soo bediyay tan waa tii afraad ilaa ma aha taa afraad in ciyaar lagaga badan doono Chelsea waa kooxaha garoonka aad ugu awood badan marka kubadda cagta laga hadlayo koox walba inteeda waa la sheegay kooxda Barcelona la yiraahdo waana taageerin laakiin xaqiiqadu ma jirto la doonayo la sheego laakiin Stamford Bridge ma aha ma ala mahlam waa garoonka riyada ciyaartii ugu dambeysayna waan ka badnay Sarri tii ka horeysayna waan la barbaraynay Sarri waxa moodaa markuu Manchester wajaho inuu awood ba lahayn ba isbedelay Pogba macal ka dhalay sababta waxaad garan kartaa selfisadan ku ciyaaray awal Hazard baan ugu khatar badnaa waqtigu ciyaari jiray markuu naga hor imaado laakiin imka Hazard sagaal buu noo dhigay waa sida ugu fudud aan qaban karnaa Hazard ninkii N'Golo Kante ee ahaa 6 hay Hazard laakiin Mourinho in barqaabka loo qabanayo horeeru soo imka laakiin macalinkan iyuu soo diri doonaa macalinka kooxdii buu ka tagay laakiin selfisadiisa wixii wanaagsan uu ka tagay kooxda waa laga qaadanaya Ashley baa jooga oo adarka si Saalax u qabanayo Lucas Shaw baa kamid ah soo qabanayaan ismaliba baan aaminsan hadduu baal ka soo galay Ashley lagu qabanayo Ashley mooy wuxuu ciyaaraa kubad bilaa waji ciyaara oo aad u adag maan tumaana marka caqabada Hazard waan ognahay Hazard inuu yahay xariifa nin farsamo badan inuu yahay laakiin qabashadiisu laguma adkaan doonto N'Golo Kante inkastoo bartisa Manchester looga dhaliyaba laakiin ciyaartani lama hayn ka dhalin doonto Kante inkastoo marka aanu wacdaro wanaagsan aanu ka qaadan ba kooxda Chelsea waa sababtan booska looga qaaday marka waxa leeyahay ciyaartaas waa anaka dhimashay naga taagan tahay saddex ciyaarood waa ciyaartii afraad Manchesterna way adkaanaysaa waa midda kale Chelsea laba fursadood bay haystaan Manchester fursad haysato Chelsea waxay haystaa UEFA iyo Kante afraad inay ku tartanto kubadda cagtana markaan daawanayno kooxdu laba rajada kooxda rajada ka tale ugu badan kooxda rajada ka taa balsa Chelsea insha Allah ka badinayna waxa macalinkan kooxda Man United lagu canaantaa inta hore afka hore tashqaab ciyaareedku ku soo ciyaaray haddaad istiraadi qaab ciyaareedku ku soo ciyaar hadduu imika tusaalaan Rashford ama Lingard iyas leeday hadduu ku soo qadimo afka hore guulu ka gaari karaya
horta wallaahi waxa weeyaan shaxda waxaad moodaysaa manchester maalmihii ugu dambeeyey ciyaari ugu dambeeyey ay ciyaartay inay waxyaabo badan kala babada badan ay ku samayso oo doorkii hore intaana shaqada maxay tahay aan loo magacaabin koochnimada guuliis way badnayn sababtaa waxa dhaawacyaduna kumay badnayn islamarkaana wuxuu ku ciyaarayay ciyaaryahano joogtaa markuu dhaawacii maxay tahay ciyaaryaha badan oo shaxda asaasiga ugu jiray ay dhaawacmeen waxaa maxay tahay suuragal noqotay in ciyaaryahano kale oo dee maxay tahay biijka u fadhiyey manchester صح maxay tahay in la keeno laakiin inta badan aad anu waxaan u jeclaan lahaa xagga afka hore markay noqoto in ninka Lukaku leeraa inkastoo صح dadku inta badan ay ku caantaan ninkaasi inuu nin cag culus yahay صح haddana waxaad moodaa xagga bitiga nasiibka inuu kaga fiican yahay maxay tahay ciyaaryahanada kale ee weerarka Manchester uga ciyaara sida Rashford oo kale oo isagu dee imika kundadiisu yartay oo khibradiisu aanay weli ma garanaysaa صح maxay tahay aanay aad u badan marka ayaad socon kartaa ku ciyaari karaa ugu macquulsan wallahi waxaan oranayaa afka hore in shaxda ku ciyaar haddii 4-4 laba noqoto صح labada inuu ka dhigo Rashford iyo Lukaku. Lukaku ka dhigo aad baad mahadsantay day wad maqlisi saaxiibka Yusuf waxa uu yiri annagu waan ka dhaasannaa kooxda Chelsea bal arrinkaas maxaad ka oranayd Yusuf waa hadlay oo wuxuu yiri Chelsea Manchester United inkastoo imika dee xaalad xun ay ku jirto marka Yusuf arrinkaa maxaad kaga falcelinay waxaan saaxiibka Yusuf haddaan isku meel nabad ka daawataa ma su-aasha filay waa run صح horta kulanku axad wuxuu noqonayaa kulan adag صح adoo Yusuf ujeedooyin badan buu fariinta kulanku u furay leeyahay صح ujeedooyin badan buu kulanku leeyahay Chelsea ujeeday ka wadataa Manchesterna ujeedo صح xaalkayga horto wuxuu ku fiicnaan lahaa muxuu ahaay xalay oo kale oo Manchester inay guuleysato صح rajo fiican bay yeelan lahayd صح laakiin maanta rajada ugu xun bay leedahay xaggii soo bixitaanka haddana kama maqna inaan kulankaa badnay inay nagu dhaweynaysa inaan soo baxno haddii muxuu ahaay aan eega ciyaarta gudaheeda صح muxuu ahaayey kulankii Matic oo kale waxaan filaynaa inuu kulankan taamu yahay صح Everton baa la eegay Everton waxaad moodaysaa inuu weli dhaawacii tijaabiye ku jira laakiin kulankan diyaar buu noo noqon doonaa صح xagga weerarka haddaan eego Chelsea waxa ka maqan ninkii muxuu ahaayey Rudiger la yidhaa صح ninka Rudiger la yidhaa waa nin fudfudud صح orod badan marka weerarkan Rashford iyo niman yaacaya nooga ciyaaraya صح marka ninkii qaban lahaa uu ninkaas noqon lahaa صح laakiin David Luiz iyo meesha Christensen taagan yihiin Rashford waxaan rajaynayaa sagaalka Rashford laga dhigo ay sidoodii soo hawaysan waayaan صح waana ku tumi doonaa kooxda Chelsea kulanka صح marka Yusuf arrinkiisa waxa leedahay Yusuf arrinka Yusuf aad ka amstay arrinka Yusuf ma kooxda kama dhanaansan doonaan Manchester waxaan rajaynayaa inay ceebta iska maydho صح Everton afar ku dhiibtay Barcelona afar ku dhiibtay صح City oo laba ku dhiibtay maxaad ku saadaalin kartaa ma aha ciyaarta muxuu ahaayey wax aynu qiyaasi karna ceebta ku dhacday laakiin tanu iskaga maydhleen صح ayaanu ka dhigi doonaa kulankan waanu ka badin doonaa waay insha Allah waxaan rajaynayaa ay Yusuf Axmed Yusuf aan ku wareejinaya Yusuf ciyaartu waa ciyaar aad u xiiso badan mucaashaqiin fara badan kubadda cagta aad u xiiseeyaan way sugayaan ciyaarta maxaad ku saadaalin karaysaa bismillahi raxmaan raxiim anigoo saaxiibkii dayb aad ugu jawaabaya صح ninkaa uu sheegay uu leeyahay Christensen صح Christensen waa difaaciyaan dhaanasha Dhemarka صح ciyaartiisii ugu horeysaan arkaba ay Manchester United ay ku ayuu ciyaaray ay ninka David Luiz leeraa ayay contest qabsadeen صح ciyaar ka horeysay inta isku dhaceen Roma ay la ciyaareen 3 yeebar khaladaad uu sameeyay ayaa shaqo laga soo Luiz ayaa mar diido sameeyay صح tababarihii uu ka takhalusay صح Christensen anagoo Manchester la ciyaarayna صح ayaa line up laga soo dhigay صح Christensen ninkii Lukaku ahaa ay halkaasuu qabtay Christensen markaa waa ninkii maanta kiilka Manchesterna bara صح oo ku caqliyeystay oo ku caqliyay صح Christensen marka day waxa leedahay Christensen Rudiger ba isaga ka sii daranba haa ay waayo kooxda Chelsea waxa mar walba lagu xantaa صح inay tahay koox difaaci aad mar walba fiican waan gartay maadaama haddaan ku imika ciyaartooyda sheega kaay صح ninkii gaari kaay leedahay ogeed 2012 صح champion kooxda la qaaday صح ayaa weli boos ka haysta waan gartay boos aan weli ka hayn صح laakiin haddana jiilkeena dahabiga ba bedelo dani kan haddana Denmark ina ka khayre dhaanashka iyo cajiibka صح Christensen ها Andreas Christensen صح nin dheeldheela marka adu day hadalkiisa maxaad ku soo gunaan leedahay Day adoo hadalkiisa- jawaab celin u sameynaya dayba hadalkiisa waxaan ku soo gunaaday صح ninka Christensen nin maaha صح laga dhaansan karayo ama laga dhaansan karayo صح waa difaac aad u fiican horta dooqa tababarayaasha kala duwan ninkii kontaha targetkiisa koobaad buu ahaa laakiin markuu Sarri Ball yimid ninkan tababaraha Mauricio Sarri صح ayuu David Luiz oo experience badan leh oo run ahaantii kana daaweyn صح ayuu ka soo horeysiisto ka soo hormariyay marka laakiin isaga laftiisu nin kubadii ay fadhiisisay maaha waan ayaan oran karinaa waa nin dooq fadhiisi صح Christensen aad baad mahadsantahay Yusuf hey Mukhtar
kulankan kooxda taageerayaashii Manchester way kacsiin aad bay xanaaqsan waxay leeyihiin annagu waan ka dhaansanaa way ka dhantay ilaa saaxiibka Siki Yusuf ka soo horjeeda xitaa wuxuu leeyahay kooxdaas ilaa xitaa Hazard waan qabanaa adoo Siki Yusuf ku ficlinaya bal arrinkaas saad u aragtay kooxda Man United inay kacsantay saad iska celin karaysan waayeen cabdirsaaq horta waxa weeye saaxiibkiisa kiyeen aad baan soo dhaweynaya su'aashaas waxa weeye horta idan Hazard ciyaartooy ma ha fudud oo lagu xiri karo markaasi mid kaliya tii wax la mid ashliyo buu kulay waxay ma sheegin inay dee sidii kala obdhudi waxaan u diraya waxaan ku ciyaarnaa 13 ciyaartooy laba kamid ah Hazard u dirana inay ku qaban karaan ma sheegin laakiin ciyaartooy la oran karo waxa lagu qaban karaa ciyaartooy kaliya ta ciyaartooy kaliya ta qaban karo ma waayo inuu ognahay imka ciyaartooyda adduunka ugu wanaagsan buu ku jiraa waxa ka horeeya Cristiano Ronaldo iyo Messi oo kaliya ta ciyaartooyda kale Neymar isaga Mohamed Salah waa ciyaartooyda la isbarbar dhigo waa ciyaartooy gambis badan waa ciyaartooy gaaban had iyo goor kubadda ilaa faawasho kama qaadi kartid Man United waa ku helay balgulay Man United nadee waa bina aragno intii hore la soo ciyaariyo kubadda sidoo had iyo goor maaragta u dhisa ama sidoo garabka uga soo gabo sidoo kubadda ciyaartooyda Manchester yiraaho aad bay khatar u batay marka waxaan leeyahay anu Manchester kulli ciyaartooyda ay nagala soo horjeeda ciyaartooy badan oo uu ka ibina kamid ah niman iyo maati joog kale oo dayb saaxiibka dayb lahaa ciyaartooy naga dhaawaca marka hadii ciyaartooyda aanu dirnay ikhwaan maata iyo maati iyo inaan nu dhahno de kuwaas aan weekend dhaliyaan mooyaan laakiin ciyaartooy kale oo Manchester oo Bolbo jooga saglastiisa Bolbo jooga laakiin waxa weeye haddana Bolbo falsafad cajiib u disay doona insha Allah waxaan qaban doonaa N'Golo Kante oo ah ciyaartooy aad u gaaban oo aad ogeyd arbunada Francisco inuu ku haysan Kante waa nin gaaban oo ninka miis qabtay ninkaas isaga laftiisu joogo aan dabir shideen inkastoo booskiisii laga yara dhaqaajiyay haddana laakiin waxaan rajaynayaa ciyaartaas horta waa ciyaar adag waxaan rajaynayaa inaan goolal kaga badin doono waliba waxaan ku saadaalnay kulanka labiyo gool inaan kaga takhasusi doono labiyo gool sax labada yaa u dhalin karan labada waxa u dhalin kara ciyaartooyga waxa haddana baasha ka soo qaatay idan Hazard oo kale ayaa hal gool dhalin kara ciyaartooyda sida Dave Luiz oo kale marka korneesha sax aad ciyaartooygaasna inuu dhalin karo waa labada nin baa saadaalinay markaas oo leeyahay goolka yaa duusis ya goolka kooxda Manchester United yaa naga dhalin goolka waxa naga dhalin karo ikhwaan maata iyo nimanka aan u dirnay maxamed cabdi saaq koosar baan isagana ku wareejinaya maxaa ciyaartu ciyaar xiiso badan maxaad ku saadaalin kartaa adoo waqtigana ii soo koobay horta anigu haddaan isku dayo saadaalinteedu waxa weeye waxa ku salaysan tahay ciyaarta sax adoo eegay macal ciyaarta inaan ciyaar fududaanayn ku saadaalinaya sax ciyaarta markaan eego ciyaartu waxay u badan tahay inay Manchester difaaciyo horta waa dhulka sax markaan runta laga hadlo sax nin wax joogto isaga iska dhalanayo sax magaciisa ninkaas adoo noo magacaabay malin baa la dhahdayo sax isaga wax mudaba inuu gool laliye sax oo sagaal buu taagay ba sagaal buu taagay marka waxaan aaminsanay ninkaas horta noo bilaabay golasha waan gartay waxa loogu xigsiin doonaa Eden Hazard sax ka saddexaadna waxa ku soo xiri doonaa insha Allah ninka dhexda nooga ciyaaray Jorginho wad gool siisay Jorginho gool khatar baa watay hay Jorginho goolkiisu yahay weeye de Fred baa ka soo horjeeda sax warka Fred iyo Jorginho waxa leedahay Jorginho waa goolka ku taabanaya hay sidoo kale haddaan u soo noqdo kulankan horta marka kulanka waxaad ku saadaalay 3 eber miya oo iyagu xabada iska dhalanayaan iyaguna ay waliba tan nimanka reer Manchester ku maqlaan iyaga ka jawaabi doona taas hay iyaga laftooda ogyihiin in ciyaartooygaasi yahay ciyaartooy iyaga ka jawaabi doona hay haddaan ka hadlo dhinaca kale haddaan ka hadlo waxdan labada haddaan ka hadlo kulankani waxa weeye waxa eegay dhowr kooxood bay eegay sax labada kooxood qura ma sax Arsenal bay eegaysa Tottenham bay eegaysa waxa eegaysa kooxo badan oo doonaya inay kaalinta afraad ama saddexaad ku dhameystaan sax kulankani waa kulan runtii aan oran karo waa kulankii kama dambaysta ahaa ee lagu soo oo saameyn xoogna kula Premiership exactly sax marka anigu waxaan aaminsanay hadaan hay taageero Chelsea 3 eber taanad ku ina 3 eber taa aanu ku tuntuusan kuntu oo waxba gool ma tin caliga iyo gool ma waad bad ma san way sigi soo maqlaysa saaxiibka Mukhtar waxa uu dhigay waan ku tumanaa nimankaas loo naxariisan maayo maxamed waxa uu leeyahay Jorginho waa dhalnay Ismailina waa dhalnay arrinka maxaad ka tiri horta markii hore idinku ma reer Manchester inaad afka furtaan waa muhiim horta arrinkaas horta inay reer Chelsea faanaan ma yahay iyadoo Manchester amsanto ciyaartu si xaqiiqada hayday u sheegayso waxa la gelin kuul muxuu ka sayaabay inay maanta Arsenal inay Chelsea maanta taa ku bidi Arsenal ku bidi Barcelona ban ciyaarna waxaan indhaha caalamka aan qabinahay iyadoo oo ku bideedo hay Thierry iyo Lampard iyo Drogba oo in ognahay ku bideedo soo hay haday maanta taa tiki in ciyaarina weyn ku bid weyn soo dhisayna waa wax aad runtii aad loogu qoslo Manchester United wuxuu inay kaasi 3 baan kaga badinaa كل النتيجة كم بدي لكن مانشستر هذه بقى أركي سهري عياري وجودن بيسي كوجل سنة ترى هذا صدق ما كذا بدنا هاسوا النتيجة عيارتي قدم مسافة كاب كنا رياتين كربتي وعيارتي كوري سوى ذاك يصير لبيلا بدا شو سمورين هو عياري مورين كاب كيسي تاس أيدل خبر برهي مختار روح الهاسر لما قبل كرو هاسر حريرة قفتة هاسر أنت قبتي كده ليبا مركز أنا جاي ليفربول لما نهين لبكو هذا اسمه ده صح ليفربول هذا الشيء وكوح النمذج ده
iyo siday u aragto fikirkay u aragtay Hazard صح Hazard waa nin laacib waan ogahay كم laakiin مختار nin la على oran كلام karo nin la oran karo كلوب بالله ku xidhay idinku nin la hal oran- nin baad u diray nin la oran karo ciyaartoy la oran karo mid laguma qaban karo inuu Hazard maaha صح Hazard hadii jeer kubadiisa markaa daawanayso waa ciyaartoy kubadda hadii jeer dib u celiya صح marka hadii la hor istaago inuu hor u socdo gool soolarna maaha صح waxaad ka gartaa goolashu Chelsea ka dhilay Manchester waan isaga waqtiga inta la jooga hadana inuu 5 gool ka dhaliyay waan gartay waqti aad u yar waxaad ka garan kartaa Charito intuu joogay 9 gool buu ka maraya Hay. isagoo oo dekada yar kana aan isku mid nahay weliba isagu daqiiqadaha ku dambeeyay ku dhalin ku dhalin jiray jiray صح marka hadda Chelsea iyo Manchester laba kooxood maanta isku faani kareen Chelsea faantay Manchester ma amusto صح sigii marka ciyaarta maxaa ku saadaalin kartaa adiga markaad eegto ciyaarta khibirnimadaada iyo adoo kooxdan taageerayaasha man Chelsea kaga falcelinaya maxaad ku saadaalin kartaa ciyaarta waa ciyaar aad bay u adkaanaysaa صح horta in Chelsea na waxay diiradda waxay saaraysaa inay kaalinta gasho صح Manchester inay kaalinta gasho waxaan rajaynaynaa gool fara badan aan la iska dhalinay صح oo ay Manchester imika waxaad ka aragtaa qaab ciyaareedka ku ciyaarso waa qaab ciyaareedka tartaaga صح sidii saarka marna dib u degaysaa marna hore u soconaysaa صح halkii Chelsea doon inay kubadda ka taa ciyaarto kubadda akhrisabaanade صح garasa marka ciyaarta hal iyo eber ayaan ku saadaalnay inay ku badin doonto Rashford inay kayra Ronaldo qaab ciyaareedkiisa bedelo waan aad u taageerayna Ronaldo kale wadahab ay yaasiino saaxiibka maxaa cabdi koosar wuxuu leeyahay wad maqlaysay Yusuf isaga waa ka sii dareewa muxtariisa wuxuu ku leeyahay isagana dee inuu ka dhaliya laga yaabaaba ciyaar aad u xiiso badan marka maxaad ku saadan kartaa ciyaarta horta wallahi waxa weeyaan ciyaartaasi waa ciyaar ka Manchester ahaan iyo ka Chelsea ahaan waxa weeyaan waa ciyaar naadigii badiya waxa weeyaan maxay tahay ay kaalinta ay afraad maxay tahay ay ku geli doonaan صح marka waxa jirta anu horta wallahi saadaasha waxaan onayaa labadii ciyaarood ugu dambeeyay aniga Chelsea maxay tahay aan wada qaadano ciyaartii FA gooda Liverpool maxay tahay aan kaga badnay koobkiina aan ka reebnay tii kale maxay tahay aan garoonkooda Stamford Bridge aan ugu martiyeen maxay tahay aan ku marteenayna taana wada laba maxay tahay inuu ku dhamaato waliba ciyaarta oo dhamaad ku sii dhow inuu gool maxay tahay uu Barkley maxay tahay uu Chelsea u dhaliyay anu ciyaartan waxaan la hadaan saadaasha anoo ku saleynaya ciyaari ugu dambeeyay waxaan la ciyaartaas waxa weeyaan waa laba gool labadana maxay tahay Manchester ba ku doonaysa oo sidii sheekay cagsiga muxtar maxay cadada waa cagsiga muxtar aniga muxtar ma waan gartay hay dayib adiga adoo ku soo igu koobay waqtiga maxaa ciyaarta ku soo daalan kartaa Yusuf Moulsi asxaabtaada kulanka horto meel inaad ka wada daawateen waa dhici kartaa waa si weyn waa kolle way dhici kartaa waan ka wada daawan doonaa hadduu ilaahay nafta noo daayo laakiin kulankan garoonka lagu ciyaarayo waa garoonkaygii haddaan dib u eegno waqtigii seera naga tegay ayaa ugu dambeysay garoonkan ay nagaga badiyaan Chelsea waa ilaa tidhiin intaa aanu dunsaneen ee u dhowrmay xaaladda uu xumeed ku jirnay Mourinho aan ku jirnay marka aan ku jirnay fangaal la mid nagagama badin kooxaas way nugula berberiyay ka badinaba marka horta waxa dhigan inay Chelsea badisaba صح oo labada ku 13 baa ugu dambeysay 13 baa ugu dambeysay waa taariikh ajaayib ayaa ugu dambeysay marka waxaan rajaynaynaa inaan maanta 19 baa la maray waa 6 sano ma yara صح iyadoo fiican oo xitaa horyaalka qaadaysa 15 horyaalka qaadaysa صح 17 horyaalka qaadaysa صح haddana kooxda horyaalka kumay guuleysan garoonka صح maanta oo ay baali garoonkooda ku qabanayso halkii marayaan aad arkasana صح ma rajaynayno hadalkayga daa waliba ciyaaraha ugu dambeeyna dawladda soo baxeen waa laga badin jiray waxaan rajaynaynaa maadaama kooxii waaweynaadan ka badiyeen inaanu qayb ka noqono oonu laba gool iyo eber kaga badno weerar xumana way haysaa Chelsea imaka oo 9 professional maanta la oran karo way ku kalsoon si fiican buu hawsha ma jiro marka ciyaarta imsa ku qiyaasi karaysa higwaayin bay keeneen higwaayina waxay kala kulmeen waynu arkaynaa ciyaarta maxad ku saadaalin karaysaa marka ciyaarta haddaan saadaaliyo weerar xumid difaac xumada Chelsea haysa annaguna qaladkayga waan saxaynaa laba gool iyo waxba baan kaga badinaa labadii in dhalo haddaan labada gool eego waxa noo dhalin doona Rashford iyo Marshall way oo nimankan muxtar ku siiyay wali Chelsea iyo nimankii aan ka kanay wad ka diidaaranka nimanka hade Matic oo kale iyo Mata horta Mata waxaan malaynayaa inaan kulankan oo kale aan ka soo qeyb karin inuu bedel ku keeno haday problem ku yimaado way dhici kartaa laakiin aanu ablaynu soo dooranayn ayuu eegtay ciyaar dagaal badan la gelay batay Matana waa nin gaaban oo aan kulli badan ku dagaalami karin marka ciyaartiisa ma noqon karto Maticna waaba sigiiso nasiib mooy ka rajayn mayno weeryaanadeeda bilaa goolasha abaarta ku dhacday ee ka rajaynaa inay laba gool oo dhaliyaan insha Allah aad baad maasanta anigoo wali ku guda jira barnaamijkii foolka fool ee taageerayaasha waxaan wali marna guntii gabagabadii Yusuf baan ku soo dhaweynaya Yusuf wuxuu yiri tayib 2013 baan ugu dambeysay kooxda Chelsea oo ku badisay garoonka Man United arinkaas maxaad ka tiri waa runtii 2013 waa Old Trafford ugu dambeysay hal yeebar uu ka dhalinaya Juan Mata uu iska sii dhalinaya Phil Jones Manchester marka la eego horyaalka iyaga 2013 ayaa ugu dambeysay laakiin de maalintii dhawada FA Cup-ki ayay naga badiyeen laba yeebar laakiin de FA Cup kama shaqeynaa horyaal baa la ciyaaraya maaha la 13 koodii
ayaa ugu dambeysay waan gartay ay naga badiyeen sanadkaa weliba waa xasuustaayo intay 2 gool naga dhaliyeen ayaan labadaba keenayo Chicharito kala tambaag garsoorihii Sacuudiga iibsadeen sax ayaa intuu 2 casaan naga siiyo ayuu gool haaf seenana sii daaya waan gartay had iyo goorana dee Manchester United iyo Sir Alex Ferguson waxaa la oran jiray seerku malaha jeebada uu bixiyaa in garsoorayaasha laakiin deemaga sheekadii way soo dhamaatay iyo sheekadii garsooraha ee loo bixin jiray kala tabaagna Sacuudiga u tagay hawanada ciyaarihii uu ka fadhiistay marka dee lugtoodii waa taa kaalinta lixaad nimankii barakeysnay lixda kaalinta lixaadkiisa marka Manchester wali halkii chance waad ka sii duminaysaa nimanka wali marka ciyaartaana haddaan ka hadlo saadaalinteeda kooxdaydu aad u liidata صح laakiin marka dee Chelsea iyo Manchester maanta xaaladda taagan la eego Manchester baa naga sii liidata marka Chelsea hadii ma aragto xanuunkooda ka kacdaa xanuunka way ka kacdaa waan gartay Chelsea ciyaartooydeeda waxa madeemayimka taariikhda intii ugu dambeysay صح imika 15kii sano ugu dambeysay صح markii Chelsea iyo Manchester isku hor yimaadeen waxa aad u iskoor badan Chelsea waa halka 2 jeer adoo soo koobaya waana ku soo koobaya 2 jeer oo isku xigta ayaan hoomiyay ka qaadnay 15kii sano ugu dambeeyay hal mar bay hoomiyay naga qaadnay waan gartay kubadda cagta beel lagama sheego markaasna champion bahed laakiin xaggan horyaalka may arag mar Mourinho iyo mar Ancelotti labada jeeran champion hoomiyay ka qaadnayna horyaalkii waan qaadnay صح intii ayagu horyaalka qaadayeen Stamford Bridge waan goosanay iyo maran Old Trafford kula baraajinay iyo maray dirqina ka badiyaan hay aad wad maasanta Yusuf aad Mukhtaar su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxay tahay kooxda Man United ciyaaryahanka aad ka baqasaan aad leedahay khatar buu nagu yahayba waa ciyaaryahanka adoo horta kooxda Man United kulli ciyaartooydeedu aad bay u degsan yihiin markaad eegto xagga difaaca xagga dhexda laakiin waxa jira ciyaartooy firfircoon oo Manchester leedahay ciyaartooyga la yiraahdo Rashford oo ciyaartooy daayira oo Ingiriisa ciyaartooygaas aad buu khatar badan yahay laakiin waxaan rajaynayaa ciyaartooy ma aha khibrad fara badan leh oo kulamo badan oo sidoo kale khibrad leh soo ciyaaray laakiin waxa weeyaan nin khibrad badan baa difaac nooga ciyaaray ninka la yiraahdo David Luiz inkastoo urud badan yahay ninka la yiraahdo Rashford haddana David Luiz khibradiisa isagoo la kaashanaya kulli ma aha ciyaartooy uu sii deynayo markaas uu siinayo space way Rashford da space isagoo urud badan yahay waa ciyaartooy dhalinyaro ninkana waa nin weyn oo daa laakiin haddana maskax ahaan ayuu ku dilayaa bay la tahay marka kaasna ninkaas oo dirana way muqtar su'aal kaftan hanan ku weydiinaya nimankan waxaan filayaa in ciyaaraha meel ka wada daawataan hadii aad ka badiyaan saaxiibkaasi aad buu kaaga soo horjeeda maxaad ugu ballan qaadi lahayd adiga aad kulli saaxiibkiisa kariye horta iyo saddex nin kala inta badan isku meel baan ka daawana haddii laga badiyo horta kulli kubaddu waa barcad laga qoraaco hadii ciyaarta laga badiyo si kaad ku cusub waa barcad iyo barbada laakiin saaxiibkiisa كل مرة كورونا ما نكلا وحلاين إما كنا كلا وحلاين من هذيك بس أرجع سيجارة ديسكو عايزين سيجارة وي سيكو مقلي سيك أديكون كوسو كوبيو محد كورنر صاحبك كفتن كي وحويان فول تاجر عشان محد كورونا هاد أركان مختار هذا جرت عيارات عشرة سيدوس حماس بدون صح صح بدنا وحوي حقيقة صح يوسفنا هم يوي كقاعد يوسف صح مانشستر يونايتد كامبيون صح كقاعد صح صح كامبيون سoo qaadi karaba Manchester ku guul badan tahay way ka taariikh weyn laba koox mar walba dhig kareen waxaan ognahay adag ay laakiin in Manchester u faanto ma dhigeysan kareen anagu boosam anagoo wadana Chelsea Ronaldo noo ciyaari jiray هي دايما هي مركز صاحبك أرنك صاحبك وان كوسي أتكني أرنك عيار بنو قبضنا دي الله تدويق بدي صح يا الله يا دون أصلا هي داي بني سكنا كوسي هي داي أدينا كفتن كأصحابته يوسف هذا البنيجيا لبدو هذا يوسف meel kale inoo la qaco day guuldarro Stamford Bridge ma ciyaaraya oo Trafford baa laakiin laga hadlay goorma ugu dambeysay laakiin ka badan hadii la eego dawaan ka badinay laba maxaa ay goolwan kaga badnay Mukhtaar hadaan eega dhib Luis Rashford labiye barka ninkii gool ka dhaliyay buu hadhay Luis ka qoos dhacay buu ahaa marka waa sababtan leh orodkan saxa kulanka marka laga yimaado maadaama Bridge ku dhawyay ha isoo qodo saaxiibka
yuusufna adoo halkan ballan qaaday waxaan doonaya inaan uga faa'iidaysto mid kale xalay hore waxaa jirtay in kooxdeedii maastare ciyaartay muxuu ahaaye la lahaa liverpool u qabta liverpool horto waxaa la yidhaahdaa godob ninkii galaa wuu ilaawaa nin laga galaa ma ilaawo taageeraasha liverpool ee xayd furan taageeri horta labay taageeri way isku kaga qasbiyeen laakiin godob bay naga godob sigay naga galeen baa waxay ahayd in sanadkii ay muxuu ahaaye dhibicna kaga qaaday ay muxuu ahaaye kooxda liverpool kulan ka hor ay sii daayeen labiye waan gartay waan ka hortay inaan u hambaynin nagabay sugayba sax arrinkaa yuusufna ii soo koob yuusufna waa saan ku sheegay muxuu ahaaye maxaad u sii ballan qaaday saaxiibka kaftankaada marka aad horta garay zero percent xagga marka labiye barka inay badinayaan haddii ay macdala dhacday habeenka yuusuf casiidu adigu kugu qoray habeenka haddaad badiso wey haddii uu kaa badiyo laga helaya haddaan ka badiyo صح ولا غير ياسين هذيك ياسين محمد عبد صاحبك محمد عبد الرزاق كوسار هذيك سو horta كوبي wallaahi waxaan doonayaa maxay tahay waqtigunoo gabgabo صح waxaan uga faa'iidaysanayaa maxay tahay saaxiibkay cabsaaq hadduu ay kulankaa ay maxay tahay ay Chelsea badiso inkastoo aanay ilaahay mana horta Chelsea weligii waxaan ka aaminsanay naadi adag oo waxa weeyaan difaac adag laakiin maalintii ay Man City 6dii eberka in wixii ka dambeeyay waxa weeyaan naadiyada aniga ilaa mid iyo wixii maxay tahay iga sii hooseeyaba naadiyadu way soo qoslaan marka waxaan la saaxiibkay cabsaaq in kullana dad manhine inagu si gaar insha Allah wada hadlo maxaa عبد الرزاق adigana saaxiibka yaasin waa ka adoo soo koobi adoo ii soo koobi waqti waa gabagabo horta ma aaminsanin aan uga badin hadday dhacdaba صح adoo casiimadaada soo ku sii gaarba insha Allah kulli waa isku xumaameen صح waa yuusuf oo soo gabagabo hadan yar ku daro waxa weeye waa markii ugu horeysay ee la arko taageero Manchester United صح oo taageero koox la ciyaaraysa xalay صح صح taageero kubad cagta waxay ku cajiyo waxa yaabo nin Manchester oo Man City taageero xalay to ee dhac صح صح moogtay taariikhdu qori marka waa iskordhada moogtay la yaabo moogtay waa waxaan ku qabsanay cabdirasaaqow arag yuusufan waan soo gabagabeynay barnaamijku waa gabagabiga taagan hay yuusuf adiga adoo ii soo koobi waqtigani aad iigu soo koobiyay aad in saaxiibkay صح طيب. ii soo koob marka horena xamaanaa kala way jira iminkana waxba kala waayimeen lebanon kuley daybow ciyaartana way ishaynaaday صح kamaan wax iska celi aad dood mahadsantiin saaxiibayaal barnaamijkii foolka foolna intaas aynu kaga barnaamijku waxaan la socodsiinay anigoo cabdirasaaq bindha ah saa iyo nabadgelyo